السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته كسو دوادا جنال كينا فرتون عليه فضلا هدي اي تاي مركي كوغو هوريسي waxaan ka codsanayaa inaad subscribe ii saartid hadii hore ii joogtayna like share comment maanta maxaa idin wadaa maanta waa maalin kale iyo barnaamijkeeni maxaan ka faa'iiday sida hore u ogeynba barnaamijka maxaan ka faa'iiday waxaan idin hore idin ku sheegay inaad toddobaadkii maalinta Arbacada aan soo deyn doono anoo ku soo qaadan doono qofka aan isleeyahay waxa aan ka faa'iiday oo sheegi doono wixii aan ka faa'iiday iyo wixii aan uga daydo iyo wax uu agteyda ka yahay maanta qofka aan ku soo qaadanayo barnaamijka maxaan ka faa'iiday waxa waa macalimadayda qof ku dayasho mudan qof aan mar walba uga daydo inta wanaagsan oo ay samayso Shukri Maxamed Cali Shukri Masala ma sha Allah Shukri Masala waa macalimad hooyo iyo abaayo ku dayasho mudan intaba marka idin sheego waxyaabaha aan uga daydo ama waxa aan ka faa'iiday marka u horeyso waxay tahay waxa aan ka faa'iiday inaan ka hadlo Shukri Masala waxaan ka faa'iiday waxyaabo badan oo ay ka mid tahay cuntooyin kala nooc ah cuntooyinka inkastoo aniga hooyaday macaan aan ka bartay sida loo kariyo ma sha Allah haddana Shukri waxyaabo badan oo aan ka bartay oo kaga faa'iiday ayaa jiro oo ilaa haddaba aan sameeyo tan kale waxa waaye Shukri markii ay digsiga iyo jikada kor istaagto horey waxa waxay sameeyay hadii anigana soo qaato qudaarteydii wixii aan u baahnay hore ka fahmi kara ma sha Allah waa qof isla markiiba qofka dadka wax fahansiin karto oo ku haboon macalinimada dadka qaar oo kale maanta hadday ay sharaxayaan ama maanta wax sheegayaan waxa laga yaabaa inaan fahmin 90% waxay sheegaan halka Shukri laga yaabo inaan markiiba ee hore ka fahmo waxa la waxay karisay hadaan isku dayo inaan markiiba labaad aan ku qasaarin oo hore ka sameyn karo ma sha Allah midaasna waa kartida iyo geesinimada iyo aqoonta iyo kalsoonida ee dadka kala dheertay ma sha Allah waxyaabaha kale oo aan ka faa'iiday Shukri waxa ka mid ah sida loo kariyo unsiga ma sha Allah dad badan waxaan ka mar walba ka arki jiray unsiga ana waxaan jeclahay sida mar inaan barto sida unsiga loo kariyo maalmaha ka mid ah Shukri oo soo adeegatay waxa la wixii unsiga alaab u baahnaayo dhan waa karina dabka saaray fiirsada bis ma haya ay soo wada diyaarsatay ma sha Allah aniga inta ay soo gadan soo adeegtay hada isku dayaan ku unsiga inkastoo uu noqonayn markii u horeyso sida ayada u karisay hadana unsi waa kariyay hadda ma sha Allah sida aan ku ilaahay u karin aqaanay sida aan u diyaariyo midaasna faldigeed ilaahay ku sugo waxa iskala Shukri Masala oo ah qofkii aan ka bartay sida loo kariyo unsiga ma sha Allah waxa la ilaahay ku siiyay aqoontaadii cilmigaada dad badan oo aniga ila midan inay ka faa'iideen ayaan filayaa haday sheegin iyo haday sheegaanba inta ku xiran janaalkaada Shukri waxyaabaha kale ka faa'iido waxay tahay isku qurxis dabiici ah dawooyinka dabiiciga oo ay soo saarto janaalkeeda Shukri Beauty oo aniga ay labadeeda janaalba aan ku taxanahay Shukri Masala iyo Shukri Beauty inta karinta iyo qurxintaba waxyaabaha uga faa'iiday sida barid markii ugu horeysay maalin waxay tiri waxa la isticmaali karaa barida si loo isticmaalo si dabiici ah barida u marsan kartid barida waxa la dhigi jiray waa daawo wajiga kobcisa waaya waxa macquul in la noqon weysay bari in qof intuu marsado inay wax tar ay leedahay markii aan ogaaday oo si dhab galay oo si fiiriyay oo natiijadeedina waa arkay ma sha Allah Shukri ma ahan qof xaasad oo qof qalbi fiican oo qof dadka si wax walba u fahansiinayso wixii ay taqaanana aan qodka ka xasdeenin walaalaheeda ma sha Allah ayaa la ugu hambalyeynaa midaas waxyaabaha kale oo aan ka faa'iiday Shukri waxa aan ka faa'iiday horta wax la soo koobi kara ma ahan iyo inta aan ka bartay qaybta macalimada iyaga tahay laakiin marka mid iyo laba iyo hal iyo saddex aan ka soo sheego marka waxyaabaha aan ka faa'iiday Shukri Masala aniga inta ila midka ma ahan waxa halkan ku soo koobi ma sha Allah waxaan leeyahay Shukri Masala marka hore hambaliyo waxa tahay gabar ku dayasho mudan waxa tahay hooyo ku dayasho mudan waxa tahay abaayo ku dayasho mudan ما شاء الله madaxa ii saaran tahay inta aan ka bartay waa kaaga mahad celinaa khayr Allah ku siiyo inta kale walaalahay ay ka barteen waxaan rajeynayaa sidoo kale Shukri waxyaabaha uga dayda marka waxa kamid ah inay tahay gabar geesiyad ah oo aan warka qof bini aadan ayadoo haysato ma arkaysid ayadoo qof ku dhagan ma arkaysid ayadoo qof wax intaas sano aan ku xirnaa YouTube-keeda 2 sano iyo bar had si toos ah ugu xiranahay janaaladeeda labada janaalba
weli ma arkin shukri iyo qof is haysto, shukri oo qof ka dacwoonayso, shukri oo qof ku dhagan, shukri iyo qof is murmaayo, shukri iyo qof loo kala garqaadayo. Intaas waxay ku tusaysaa inay tahay qof ku dayasho mudan oo karti leh oo dadka u joojin wax kasta oo la sheego ama wax kasta oo lagu sameeyo. Maasha Allah ayaan leeyahay midaas waa ugu hambalyeynaya. dad ayaa markay maqlaan barnaamijka maxaan kaa faa'iiday waxay u maleynayaan inaan barnaamijka ku raadinayo inaan qofkaas aan magac ka raadsado, aan maamuus ka raadsado, aan qofkaas oo aan maxaa la dhihi jiray share out ii sameeyo ama oo qofkaas uu maalin intuu maqlo uu soo qaato. No, taas ma ku jirto meesha. aniga dadka aan dhahay maxaan kaa faa'iiday waa dad si real ah wax uga faa'iiday, ma ahan qof aniga wax ka rabo ama magac uga rabo ama wax uga rabo ama maxaa la dhihi jiray inuu qofkaas isaacido ma jirto. sababta maxay tahay aniga anaaba isa soo bixin kara, anaaba maxaa la dhihi jiray u soo bareeray sooma si inta iyaga isgaarsiin in ka badan in isgaarsiyo hadduu ilaahay ii garto anigaaba rajaynaayo. laakiinse waxay tahay aniga inaan qofka xaqirin aan wax ka bartay. qofkii maalin aan wax ka baratay waa macalinkaaga. qofkii aan maalin wanaag qofkii maalin aan wax ku baratay waa macalinkaaga. qofkii maalin aan wax ku tusay wixii ku tusay aad samaysay waa macalinkaaga. macalinka kaliya ma aha midka dugsiga iyo iskoolka kuu dhiga, laakiin waa macalinka, waa qof kasta oo wax aad ka fahantay oo ka baratay. maasha Allah ana waxaan aaminsanahay shukri inaan ka bartay waxyaabo badan oo ugu muhiimada koobaad ee taa uunsiga horta uunsiga oo maalin kasta hadda markay wax yar joogo uunsiga waa samaystaa markii u baahdo. taas waxaan uga baxay ciilkaan u qabo uunsiga markaan uu iga go'abaan u raadsanay ama u yeelay aniga wali ku sii faa'iido oo uunsiga si fiican meel fiican hadda uu maray heer fiican ka gaaray. qofkii marka intaas aan ka bartay in ka badan inaan dhaho waa mahadsan tahay, dadka wax fiican oo soo bandhigtaa shukran inaan dhaho waa qasab ma ahan. waa qasab mintaas ma ahan qofka waxaan aniga wax uga rabo markaas ayada ah inaan qofka sheego wanaagiisana waa wax la igu soo tarbiyay oo aan xaqirin qofka bini'aadamka ah qofka walaalka ah waxa ka baratay. shukri waxaan leeyahay shukri waa mahadsan tahay. inta aan ka bartay waa kaaga mahadcelinaya inta aan hadda kadib ka baran doono insha Allah oo ay ka mid tahay cuntooyinka la nooc oo natid uunsiga aan ka bartay barida idaha oo in la isticmaalo qofka wajigiisa inuu marsado oo isticmaalo si natural ah daawo inay tahay aan ka fahmay. intii aan ka barto dhan ku mahadsanid walaashay, aad u mahadsan tahay. asxaabtayda waxaan idinka codsanayaa inaad barnaamijka ii share gareysaan, like, share, comment inay ila wadaagtiin. hadday ugu cusubtihiin inaad subscribe ii saartiin idinkoo mahadsan. insha Allah inta mar kale ku kulmi doono barnaamijkii maxaan kaa faa'iiday toddobaadka dambe maalinta Arbacada insha Allah. waxaan idinka tagayaa khayr caafimaad. assalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. waxaan u mahadcelinaa asxaabta cusub ee igu soo biirtay maalmihii u dambeeyay. waxaan idin leeyahay shukran. kusoo dhawaada janaalkeena. janaalku waa janaalkiina gacmo furan iyo qalbi furan. maasha Allah aad iyo aad u mahadsantihiin. jasaakumullahu khayr. waxaan rajeynayaa intaas in ka badan inay igu soo biiri doonto insha Allah.